Video cusub kusoo dhawaada oo ku saabsan Sijon Style. Sijon Style dhawaanahan dhan waxaa ka socday qalcaaso. Waxaa weeye dadkay u diideen withdrawalkii lacag in lagala baxo way diideen. So waxay u muuqdaa wixii loogu cabsanayo oo qalqalkii laga qabay inay isku cadeeyeen hadda iyaga. Haddeertaan shalay dhan withdrawal way diidayeen. Haddeertaan waxay dhaheen qofkii rabo inuu withdrawal sameeyo lacagtiisa akoonkiisa ku jirto balansiga 20% ka mid ah inuu soo diraa. Halkaan bay ku sheegeen message-kan 2 hour ago soo dhacay. Intay ku cadeeyeen waxay yireen message-kan 2 saac ka hor uu soo dhacay. Halkaan way ku cadeeyeen waxay dhaheen qofkii raba inuu withdrawal ama deposit sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu deposit withdrawal akoonkiisa active ka dhigo. Lacag dhigidiisa iyo lacag la bixidaba inuu active ka dhigo bay dhaheen. So active ugu dhigana waxa u baahan yahay kulaha 20% lacagta akoonkiisa ku jirta inuu soo deposit gareeyo. Kadibna markuu soo deposit gareeyo customer care-ka la xiriiro customer service-ka oo u diro screenshot-kii iyo wixii soo diray oo lacagtina laga arko. Kadib baa loo furaayay dhaheen withdrawal kadib wuxuu qaadan doonaa 20 daqiiqo deposit-kana 3 daqiiqo. Saasay u soo hadleen. Marka hadda dadkii dhan waa ka wada xiran yahay shaqo lama qaban karo oo halkaan hadda ku dhufto garaabkan saas buu leeyahay abnormal waaye administration-ka la xiriir. Marka maxaa idinla talin lahaa saaxiibayaal shilin ha isku dhigina 20% sheegayaan ha u dhigina. Maxaa 20% hadday u baahan yihiin akoonka lacagta ku jirta ka jaran lahayn kadib inta kalena active ay ku noqon lahayd. Laakiin lacag inaad soo dhigtid hadda waa waxa akoon ku jira hadda lacag maybe inay ahayn number lagu tusinayo. So waxaa idinkula talin lahaa Sijon Style halkaan ku macsalaamaya lacag dambe iska gelinina bartiisa ugu taga ama bartiisa baa ugu tagay wax dambe aad dhigay male lacag kale aad ka rabana male saan ay ugu nabadgeliyaan taaganahay inta ka qabsan karo waa ka qabsaday. Waxaa idinkula talin lahaa asxaabay meesha isaga joojiya dambe lacag ha gelininaha. Waxaa weeye tuugadii la sheegayo toos bay noqdeen. Waxaa yeelay lacag soo dhig kadib lacag baxsanay waxaas wax soconaya ma ahan. Marka dadka idin dhahayo lacagtaas 20% iska dhiga ha ka yeelina. Ebel wax walba si fiican bay u socdeen marka nila soo share gareynay oo lacag waa kala bixeen lacag waa dhiganeen hadda dayba sheekadan bilaabeen. Guys waxaa idin leeyahay u gooya waxba ha dhigina shilin ha dhigina lacagtiina safe inta ka qabsateen waa ka qabsateen inta ku jirto meesha ugu tag $100 ugu jirto meesha ugu tag 200 ugu tag shilin ha u dhigin. Aantaas baa idin la talin lahaa maxaa yeelay hadday run ka tahay oo 20% akoonka balansiga ka jaran lahayn kadibna inta kale active ku tahay oo ku siin lahayn faanta ma ku shaqeysan dad lacag kale hadda 20% intaas oo qof hadana day ka qaadan lacag weyn u soo boodayso marka I don't know qof withdrawal active laga dhigayo asan hadan lacag ugu jirto waxaas sheeko soconaysa waxa. Marka waxaa idin leeyahay guys bye dhaha Sijon Style meeshiisa ugu taga aanu lacag dambe aad dhigay malahan inta ku jirtana ha qaataan hadday rabaan. Marka waxaa idin leeyahay guys ha isku maalgashanina waxaa weeye banaankaas ha laga joogo macsalaama iska dhaha Sijon Style. Scam-kii la sheegay bay noqdeen oo lagu shakinayay maxaa yeelay ebel anaga shaki baa ka qabnay waxaan dhahaynay nin walba wuxuu maalgashan karo awoodo beerkiis ka go'ah galiyo. Intii galiso wax kaga qabsatay maasha Allah oo lacag kaga sameeyso ka baxsatay way dadaashay. Inta ka qabsanin hadda wax kale ka galin meesha bartiisa ugu tag waan ku dheelaa. Intaas baa rabo in idin la wadaago waxaa weeye
bye bye dhaha sii joonstaan guys. Messagekan waxa ay soo direen 20 daqiiqa ku helaysaa iyo waxaas wax ka jira male. Hadday run tahayba lacagta balansiga bay ka jaran lahayn lacag kala dheeri laguma weydiin. Marka guys waxaa idin leeyahay sii joonstaan bartiisa ugu taga, lacag dabayaa idinka gelin. Anna halkaas baa ugu baxay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadii waxyaabo kale oo la jid insha Allah ay soo baxaan waa idin la soo wadaagi doonaa. Laakiin for now bye bye aan dhahay ani. Wassalaamu